daawadayaal soo dhawaada diyaarad ayaa soo dhacday askar u dhashay wadamada Qatar iyo Turkigana way geeriyoodeen xilli ay la dagaalamayeen madaafiicda dawladda wadanka Iran ay soo turtay. waxaan kaloo fiirin doonaa dawladda wadanka Iran ayaa ku hanjabtay in ay burburin doonto xarumaha korontada ilaa iyo nuclearka ee ku yaala dalalkan bariga dhexe. Iran waxa ay maraakiibta maraysa biyo mareenka Hormuz yiraahdo ay ka qaadaysaa $2 milyan markabkiiba, taas oo dhaqaalaheeda kor u qaadaya. ninkii Netanyahu ahaa afka ayuu furtay, waxa uu leeyahay dalalka caalamka waa inay nagu soo biiraan xilli ay dabcan qasaaro xoogan la kulmayaan Mareykanka iyo Israel. qodobadaasi ayaanu goordhow saaxiibayaal falanqeyn ku sameyn doonaa haddii aad nagu cusubtihiin nagu soo biira. marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa saaxiibayaal 4 askari oo Qatar u dhashay iyo 2 askari oo u dhashay wadanka Turkiga iyo 2 farsamo yaqaan oo ka tirsan shirkadda difaaca Turkiga ee Asalansan yiraahdo ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo nooca diyaaradaha qumaatiga u kaca ah oo ka dhacay gudaha wadanka Qatar yiraahdo. diyaaradan waxay ahayd diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee helicopterska loo yaqaano militariga wadanka Qatar ayaa lahaa. horaantii maanta ay diyaaradan ku burburtay gudaha wadanka Qatar sida ay tabisay wasaaradda difaaca ee wadanka Turkiga. wali waxa socda baaritaan lagu ogaanayo cilada dhalisay diyaaradan inay burburto, laakiin warbaahinta gudaha wadamadan bariga dhexe ayaa warinaya in diyaaradan ay la dagaalamaysay iyo askartii saarnaaba madaafiic iyo diyaarado daroon ahaa oo Iran ay soo dirtay oo ku soo socday gudaha wadanka Qatar. waana markii ugu horeysay oo tan iyo markii dagaalkan uu bilowday diyaarad nooca qumaatiga u kaca ama helicopterska loo yaqaano ee dawladaha carabtu ay leeyihiin inay ku burburaan dagaalkan hadda ka socda. dabcan wasaaradda difaaca Turkiga way xaqiijisay askartii geeriyooday in 4 ay u dhasheen wadanka Qatar, 2 ay u dhasheen wadanka Turkiga iyo 2 farsamo yaqaan kale oo ka tirsan shirkadda difaaca wadanka Turkiga. dabcan qasaaraha dhaawacana waa uu jira oo Qatarna way ka hadashay, waxay tiri askar kale oo dhowr ah ayaa dhaawacmay. xaaladdu meel adag bay ka maraysaa dalalkan Qatar iyo sidoo kale wadankan la yiraahdo Imaaraadka Carabta. daawadayaal intii Iran ay bilowday jawaab celinta weerarkii lagu beegsaday wadanka Qatar si adag ayaa loo duqeeyay, sababtoo ah waxa ku yaala saldhigga ugu weyn ee Mareykanka bariga dhexe uu ku leeyahay. sidaas la mid ahna warshadaha waaweyn ee sifaynta korontada iyo tamarta saliidda iyo gaaska ee wadankan Qatarna aad ayaa loo burburiyay. marka maanta Iran saaxiibayaal guushaas ayay gaartay oo dabcan u dhigma baa la yiri in ay Qatar ay dhibkaas ay gaarsiisay. walow Qatar 2 maalin ka hor ay ceerisay safiiro u dhashay ama safiiro Iran ka joogay wadanka Qatar, oo Qatar baa wax ceerinaysa xiriirka Qatar iyo Iranna meeshaas buu gaaray. Iran waxay leedahay haddii aad iska ceyrisaan ciidanka saldhigyada Mareykanka ee dalalkiina ku yaala, kadib annagana waanu joojinaynaa beegsiga aanu xarumihiina ku hayno. marka Iran ma laga yaabaa inay guuleysan doonto oo dalalkan Khaliijka iyo Carabta ay saldhigyada Mareykanka ay iska saari doonaan, mise waxay kula tahay dalalkan Khaliijka way ku sii adkeysan doonaan dagaalkanna sidaas ayaa u sii socon doonaa. waa liska wareysanaya arrintaas. saaxiibayaal dhinaca kale aynu fiirino Trump ayaa maalin ka hor waxa uu u hanjabay wadanka Iran oo waxa uu yiri xarumaha korontada ee wadanka Iran waanu burburinaynaa. dabcan isla markiiba dawladda wadanka Iran ayaa soo jawaabtay. wakaaladda wararka ee wadanka Iran ee Mahir News Agency yiraahdo ayaa sheegaysa in Iran ay beegsan karto xarumaha korontada ee dalalka Khaliijka sida Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Kuwait, iyagoo dabcan Iran sheegay in badankood ay u jiraan masaafo ay gantaalada Iran ay gaari karaan haddii waxay yiraahdeen Trump uu beegsado xarumaha korontada ilaa iyo nuclearka ee wadanka Iran. oo Iran baa dhehaysa oo Trump baa markii hore bilaabay. Trump markii hore waxa uu yiri xarumaha korontada Iran baanu beegsanaynaa, wadanka oo dhan mugdi ayaanu ka dhigaynaa Iran. isla markiina Iran waxay tiri waayahay soo weerar xarumaheena korontada weerar, annaguna waxaanu burburinaynaa xarumaha korontada ee dalalka Khaliijka sida Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Kuwait ayaanu annagana burburinaynaa. maalin ka hor Iran waxa ay dabcan burburisay xaruntii korontada ee Israel ee waqooyiga ku taalay, taasoo dabcan keentay in mugdi ay noqoto Israel gudaheed. marka Iran waxay leedahay annaga haddii waxna laga taabto wixii kale ayaanu annagana burburinaynaa. marka Khaliijka haddii aad joogtid Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo Kuwait iyo dalalkan kale, dabcan waxa ay u muuqataa in Iran ay xarumihii korontada ay markan burburin doonto. waa haddii Trump uu burburiyo ama uu beegsado xarunta korontada ee xarumaha korontada ilaa iyo nuclearka ee wadanka Iran.
saaxiib yaal sidoo kale Turkiga waxa ku yaala xarun ay yaalaan madaxyada hubka nuclear-ka gaashaanbuurta NATO iskale laakiin Mareykanka ayaa iskale oo magaca NATO ay halka ku joogaan marka Iran waxay leedahay xarumahaasi nuclear-ka ee Turkigana annaguna waanu beegsanaynaa saaxiib yaal dagaalkan hadda waxa uu toos ugu wareegay kaabiyaasha nolosha sida korontada iyo tamarta Iran waxa ay diraysaa fariin ah haddii nala weeraro gobolka oo dhan waanu dabcan mugda ayaanu ka dhigaynaa korontadana waanu ka jaraynaa maalmo ka hor markii la weeraray goobaha shidaalka waxay durba weerartay kuwa qaliijka oo ay qadar u geysatay khasaare dhan $20 bilyan dalalka qaliijkana waxay noqdeen dabcan bartilmaameed toos ah oo Iran hadda ay beegsanayso waxa dabcan Iran sidoo kale ay maalin ka hor ay uga digtay dad ku nool magaalo ku taala Imaaraadka Carabta inay ka guuraan haddii kale Iran dabcan ay magaaladaasi ay burburin doonto saaxiib yaal dhinaca kale maalin iyo habeen shacabka madaxda iyo qof kasta oo Israa'iil jooga dabcan godad dhulka hoostiisa ay ku jiraan maharsadaan dabcan ma nastaan maalin walba duqeynta ayaa ku hoobanaysa Iran shalay markii ay weerartay xarumaha nuclear-ka ugu weyn ee Israa'iil ay leedahay dabcan waxaa la soo wariyay in dad 200 qof gaaraya inay dhaawacmeen isla markaana khasaaraha uu inta ka badan yahay qaybaha kale ee barnaamijka ayaan qodobkaasi dabcan ugu tagi doonaa bal markan saaxiib yaal aynu eegno Iran ayaa maraakiibta maraya biyaha marin biyoodka Hormuz yiraahdo waxay ka qaadaysaa lacag gaaraysa $2 milyan arintan dabcan waa arin kor u qaadaysa dhaqaalaha dowladda wadanka Iran xubin ka tirsan baarlamaanka wadanka Iran ayaa maanta waxa uu warbaahinta u sheegay in Iran ay qaar kamid ah maraakiibta maraya biyo mareenkan ee Hormuz yiraahdo inay ka qaadi doonto lacag gaaraysa $2 milyan midkiiba waxa uu sheegay in maamul cusub lagu soo rogay marin biyoodkan dagaaladu dabcan ay saameynayaan isagoo sheegay xildhibaankaasi in marinkan Hormuz uu furan yahay oo kaliya dalalka xiriirka wanaagsan la wadaaga wadanka Iran isla markaana markab kasta oo halkan maraya $2 milyan ayay Iran ay ka qaadaysaa waa macaash ama isgoys halkan Iran ay isbaara ay dhigatay arintaas oo dabcan Iran la leeyahay waxay kor u qaadaysaa awoodeeda xagga dhaqaalaha walow shalay Trump uu sheegay in muddo hal bil ah uu dabcan wadanka Iran ka qaaday xayiraadii cunaqabataynta ee 1996 Mareykanka uu saaray shidaalka laga soo dhoofiyo wadankan Iran marka waxa la leeyahay cunaqabatayntiina meesha Trump uu ka qaaday Iran waxay leedahay wali maraakiibta Israa'iil iyo Mareykanka iyo xulafadooda u socda halkan ma marayaan waxa kale oo Iran ay leedahay markabkii annaga aanu rabno baa halkan maraya $2 milyan ayaanu markabkeena ka qaadanaynaa arintaas oo Iran gacan weyn wali siinaysa xilli dagaalkan uu aad u sii socdo dhinaca kale daawadayaal ninkii ra'iisul wasaare Netanyahu ahaa ayaa maanta afka furtay oo u wacay dhammaan wadamada hogaamiyaasha dalalka caalamka intooda badan waxa uu yiri walaalayaal oo ku sabiira dagaalkan xaaladdu hadda aad bay noogu xun tahay ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dalalka caalamka inay ku sabiiraan dagaalkan Mareykanka Israa'iil ee Iran ay ku hayaan isagoo dabcan maanta ka hadlayay koonfurta Israa'iil magaalada ku taala ee Arad liiraahdo halkaas oo Iran shalay ay burburisay waxa uu yiri hogaamiyaasha caalamka waxaan ugu baaqayaa in walaalayaal oo dagaalkan aad ku soo biirtaan xaaladdu meel adag bay naga maraysaa Israa'iil kaliya shalay 200 oo qof ayaa ka dhaawacmay khasaaraha dhimashada inta way ka badan yihiin dad nool ayaa la waayay oo 40 qof gaaraya xaaladdu meel adag bay maraysaa marka afka buu furtay dalalkii caalamka ayuu u qayla dhaaminaya oo uu leeyahay na soo gaara dhinaca kale daawadayaal suuragal ma tahay in hogaamiyaasha caalamka dagaalkan ay ku soo biiraan mise waxay kula tahay in dagaalkan looga siibtay Mareykanka iyo Israa'iil oo la leeyahay idinka ayaa dagaalkan markii hore galay idinka ayaa haddana dagaalkan iska xalinaya bal qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada qodobkaasi ku saabsan dhinaca kale saaxiibayaal xeebaha wadanka Imaaraadka Carabta maanta qarax xoogan ayaa laga maqlay waxaana halkaasi lagu qarxiyay markab marayay shaqaalihii saarnaa iyo sidoo kale markabkii waxa la leeyahay way badbaadeen hay'ad fadhigeedu uu yahay dalka Ingiriiska oo yiraahdo UK Maritime Trade Organization ayaa waxay warisay oo barteeda Twitterka soo dhigtay in qarax weyn uu ka dhacay meel 15 nautical mile u jirta
koonfurta dekeda sharjah la yiraahdo ee Dubai ku taala dabcan hay-adan Mareykanka Ingiriiska waxay tiri qasaare dabcan kama dhalalin laakiin markab halka marayay ayaa Iran ay weerartay oo ay qarxisay xaalku meel adag buu marayaa saaxiibayaal bal qaybta hoose aragtidaada nagula wadaag dhinaca kale saaxiibayaal aynu eegno dowladda wadanka Iran ayaa ku hanjabtay inay xireyso isgoyska Babul Mandab la yiraahdo iyo sidoo kale inay xireyso badda cas haddii dabcan la weeraro xarumaheeda nuclearka arrintaas oo dabcan Iran ay leedahay waan ka dhabaynayaa mana istaagi doono haddii nala soo weeraro arrintaas marka saaxiibayaal ma keeni kartaa in Soomaaliya dagaalkan loo soo jiiday haddii Israel ay saldhigyo ka samaysato Somaliland oo Yemen ay weerarto Iran dagaalka ay soo gasho Iran dabcan waxaan ognahay shalay inay weerartay jasiiradda Diego Garcia oo badda cas ku taala 4,000 oo kiiloomitirna u jirta wadanka Iran marka waxa la leeyahay hadiiba 4,000 ay gaartay Iran sidoo kalena waxay gaari kartaa Soomaaliya iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee reer Yurub qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan bal nala wadaag markan waxaan fiirinaynaa saaxiibayaal wararkeena kale qolyihii reer Iran ahaa shalay ilaa iyo xalay wixii ay sameeyeen wali dabcan caalamkii oo dhan ayaa maanta hadal haya qasaarihii gudaha Israel gudihiisana dabcan si loo kala saaro ayaa la leeyahay Iran intii dagaalkan uu bilowday waxa ay mar walba dabcan dagaalka ka hor iyo wada hadallada intay socdeenba Iran waxay dhihi jirtay annaga cidna duulaan kuma nihi cidna dabcan dagaal kuma qaadayno wada hadal baanu rabnaa saaxiibayaal aan wada hadal wax ku dhamayna waad ogeedeen laba wada hadal oo dheer ayaa la galay midna Oman ayuu ka dhacay midna dabcan Switzerland ayuu ka dhacay labadii wada hadalba iyadoo loo fadhiyo waa tii Mareykanka iyo Israel weerar gaadma ah ay Iran ku qaadeen Iran marka waxay tiri hadiiba wada hadalkii la buriyay annagu wixii hadda ka bilowdo dabcan waanu argoosanayna argoosashadii ayay Iran bilowday oo waxay tiri madaxdii nagala dilay ayaanu dabcan u argudayna tii waa laga soo gudbay Iran waxay tiri hadii warshadaheega dabcan gaaska iyo saliidda soo saara energy-ga hadii la weeraro anna waa argoosan doona tiina way dhacday Iran dabcan waxay ka argoosatay warshadihii qaliishka iyo sidoo kale kuwii energy-ga ee Israel waa tii xitaa korontada ay ka jirtay Iran marka waxay tiri tallaabo kasta oo la qaado aniga waan ka jawaabaya marka maxaa dhacay marka maalin ka hor saaxiibayaal waxaa dhacay Israel baa waxay duqeysay xarumihii nuclearka ee Natanz magaalada la yiraahdo ku taala ee Iran ay leedahay Israelna waxay tiri haddii xarumaheegii nuclearka la weeraray anagana dabcan xarumaha nuclearka aan weerarayna marka shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo saaka Iran waxa ay weerar xoogan ay ku qaaday magaalooyinka waa magaalada koonfurta ku taala Israel ee Dimona la yiraahdo ama Dimona la yiraahdo waxa magaaladaasi ku yaala warshada ugu weyn ee nuclearka ee Israel ayaa halka ku taala Iran si dabcan daran bay u duqeysay magaaladan warshada ugu weyn ee nuclearka Israel ay ku leedahay maxaa ka dhacay marka 176 qof bay Israel xaqiijisay inay ku dhaawacmeen waxay tiri geeridu xisaab malahan waxay tiri dad 38 qof ayaa ilaa iyo hadda la laayahay inay nool yihiin iyo in kale dabcan waa dareemi kartaa gacanta Iran ee weerarkan fulisay in ay bartilmaameed saxan ay heleen isla markaana Israel saacado gudahood 176 qof oo dhaawacay ay sheegeen walow dhimashadu ay qarinayaan waxa la leeyahay hadiiba dhaawaca 176 uu yahay 38 la leeyahay dhimashada ayaa intaa ka badan marka Israel waxay isku dayaysaa dhimashadu inay qariso iyada waliba xaqiijisay in weerarkaas uu dhacay Iran marka waxay tiri warshadeeda nuclearka ee Natanz ku taala ee la weeraray beeta u ahayd aargudasho dabcan waanu aargudanaynaa si adag ayaanu u aargudanaynaa saaxiibayaal dadka halkan dhibka uu ka soo gaaray ciidaas bay ka badan yihiin oo reer Israel ah Iran markii weerarkaasi ay fulisay Israel wasaaraddeeda caafimaadka ay tiri dabcan qasaare iyo jab xoogan baana gaaray isla markiiba waxaa khudbad jeediyay ra'iisul wasaaraha maamulka Israel ninka la yiraahdo Netanyahu kaas oo yiri wax ka adag intii dagaalkan uu bilowday nama soo marin buu yiri waxa uu yiri tan iyo dabcan dagaalka markii uu bilowday bishii hore ilaa iyo maanta dhimashada iyo dhaawaca ciidaas bay ka badan yihiin sidoo kale waxa uu yiri ninka Netanyahu la yiraahdo weerarada hadda dabcan nagula soo qaaday ma ahin weerar anagu aanu dabcan filaynay sidaas la mid ah waxa hadlay afayeenka militariga maamulka Israel waxa uu yiri nidaamkeena difaaca hawada dabcan waa uu shaqeeyay laakiin uu ku guuldareystay buu yiri inuu celiyo qaar ka mid ah madaafiicdii Iran ay soo tuurtay iyo diyaaradii marka waxa uu yiri afayeenkan wixii aanu aragnay dabcan kama soo kabsanayno buu yiri sanadaha soo socda
warbaahinta sidoo kale waxay la hadashay qolyaha dabka damiya dabcan fire fighterska loo yaqaano ee dabdamiska iyo ambalaasyada la hadashay warbaahinta waxa ay yiraahdeen labada magaalo ee Dimona la yiraahdo iyo Arad waa labada magaalo ee nidaamka difaaca hawada Israa'iil uu yaalo hubka nuclearka iyo warshadaha Israa'iil ee nuclearka yaalaan dabcan inay soo kabtaan dabcan lama filayo baaliyiri muddooyinkan soo socda markii afhayeenada iyo ra'iisul wasaaraha iyo dadkii dabcan gargaar ka shaqeynayay la wareysay isla markii waxa soo hadashay haddana ayna hay'adda la yiraahdo International Atomic Energy Agency la yiraahdo hay'addan waa hay'ad caalami ah oo dabcan atomikada iyo energy-ga waxa dabagasho oo ka shaqeyso waxay leedahay ilaa iyo hadda warshada weyn ee Israa'iil ee nuclearka ee magaceedu uu yahay Shimon Peres la yiraahdo oo magaaladan Dimona ku taala ilaa iyo hadda dabcan wax radiation ah ma jiro radiation waxa laga wadaa marka dabcan meesha nuclearka iyo waxa faafa ee sunta ah hawada ku darsama ilaa hadda wax weyn oo dhibah maysan gaarin sidoo kale qolyaha nuclearka dabagala waxay leeyihiin xaaladan waxay ka dhigan tahay in dagaal nuclear ah uu bilaaban karo sidaasi si lamida saaxiibayaal dadyowga iyo wariyaasha dabcan deegaanka jooga sida Ramallah iyo sidoo kale magaaladan la weeraray Israa'iil gudaheed waxay leeyihiin Israa'iil hadda bay xanuunkii dhabta ahaa ee dagaalka iyo sidoo kale Iran dharbaxdeeda ay gaartay arintaas oo keentay hadda arin walwalkeedii dabcan uu sii kordhayo Mareykanka iyo Israa'iil waxay hadda ka taagan tahay dagaalkan maxaad u bilowdeen oo Iran aad weerar ugu qaadeen waana dabcan walwalka meeshii ugu dambeeyay buu saaxiibayaal ka taagan yahay in 176 qof ay dhaawacmaan saacado gudahood sidoo kalena dhimashadu ay intay dabcan ay ku dhowdahay dadka la laayahayna ay 40 ay gaarayaan Israa'iil waxa la leeyahay wixii ay Gaza ku sameysay ayaa Iran ay hadda ku sameynaysaa marka Iran awoodeedii ay hadda banaanka soo dhigtay Iran marka waxay leedahay tallaabo kasta oo la soo qaado tallaabada xigta waan uga jawaabeynaa xarumihii tamarta iyo warshadaha sifaynta ayaa laga weeraray Iran way ka jawaabtay kuwa Israa'iil waa kuwa burburisay magaalooyin dhowr ah oo Israa'iil ka tirsan koronto la'aanka ka dhigtay wadankii qadarna dabcan warshadeedii weyneed ee sifaynta gaaska saliidda gaaska dareeraha ah waatii iyana la burburiyay Iran shalay sidoo kale waxa ay ku amartay magaalo ku taala gudaha Dubai gudaha Imaaraadka Carabta in laga qaxo tiina dabcan waa laga qaxay Iran marka dabcan dagaalkii hadda waxay ka dhigtay mid aan gobolka ahayn oo ballaaran bal qaybta hoose daawadayaal nagula wadaag jabkaasi xoogan ee gaaray reer Israa'iil oo ay afkood ka qirteen miyuu jabkaasi soo dadejin karaa in dagaalkan ay ka baxaan Mareykanka iyo Israa'iil aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag galabta barnaamijkan halka ay noo jooga saaxiibayaal haddii aad doonaysid macluumaad kuwan lamid ah fadlan subscribe saaro qaybta hoosena aragtidaada nagula wadaag waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan